بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال كسو دوادا warkii telefishinka qaranka Soomaaliya oo idinkaga imaanaya studio TV-ga qaranka oo ku leeyahay magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya. Qodobada ugu doorka roon warka waxa kamid ah gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay in howlaha shaqo ee baarlamaanka Soomaaliyeed aysan u istaagi doonin falalka ay kooxaha argagixisada ay ka sameynayaan dalka Soomaaliya kadib kulan uu la yeeshay shaqaalaha baarlamaanka. golaha wasiirada ee xukuumadda Soomaaliya ayaa kulan maanta ay ku yeesheen magaalada Muqdisho waxa ay kaga hadleen horumarada ciidamada dawladda iyo kuwa AMISOM ay ka sameeyeen gobolada Jubbooyinka iyo waliba fatahaada webiga Shabeelle oo ka sameeyay magaalada Beledweyne. kulan looga hadlayay sidii loo caawin lahaa dadka ay saameeyeen fatahaada webiga Shabeelle ayaa maanta magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxa ku yeeshay maamulka gobolkaasi iyo waliba hay'adaha samafalka. wasiirka amniga iyo arrimaha gudaha iyo taliyaha ciidamada booliska ee saraakiil ka tirsan ciidamada ayaa habeennimadii xalaheed waxa ay bilaabeen kormeer ay ku tagayaan saldhigyada ciidamada booliska iyo waliba kuwa militariga ay ku leeyihiin magaalada Muqdisho iyagoo u kurgalaya qaabka ay u shaqeynayaan. wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya ee saraakiil ka tirsan ciidamada ayaa guul weyn ku tilmaamay guusha ciidamada dawladda iyo kuwa AMISOM ay kula wareegeen magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose. madaxweynaha maamulka Puntland Cabdiraxmaan Farole ayaa maanta waxa uu ka qayb galay kulan looga hadlayay horumarka degmooyinka maamulka iyo sidoo kale waxqabadka maamulka ee 6 bilood ee la soo dhaafay. jaaliyadda reer Hiiraan ee ku dhaqan magaalada Nairobi ayaa waxa ay ugu baaqeen dadka Soomaaliyeed iyo waliba hay'adaha samafalka inay gargaar degdeg ah la gaaraan dadka ay saameeyeen fatahaada uu sameeyay webiga Shabeelle. maxbuuskii ugu dambeeyay oo reer galbeed ah ayaa laga sii daayay xabsiga Guantanamo Bay ee ku yaala jasiiradda Cuba oo ay gacanta ku hayso dawladda Mareykanka. wararka caalamkana waxa ugu waaweyn daadad xoogan oo ka dhashay roob mehigaana oo ka daay qaybaha koonfureed ee dalka Spain ayaa waxa ku geeriyooday ilaa 8 qofood. maxbuuskii ugu dambeeyay oo reer galbeed ah ayaa laga sii daayay xabsiga Guantanamo Bay ee ku yaala jasiiradda Cuba oo ay gacanta ku hayso dawladda Mareykanka. intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roona haatanna ku soo dhawaada warkii oo dhan.